waxaan halkan ku xaqiijinayaa maanta haddii aan abni keeni waayo inaanan dib dambe hortiina u soo istaagi doonin anigoo xildoon waxaan halkan ku xaqiijinayaa haddii aan cadaaladda ka madax bannayn waayo hay-adaha fulinta dib dambe hortiina uma soo istaagi doono anigoo xildoon haddii aan hantida dawladda ilaalin waayo dib dambe uma soo istaagi doono hortiina anigoo xildoon haddii ugu yaraan 100 kun oo dhallinyaro ah aan shaqo abuur u samayn waayo 4 sano oo aan xilka hayo dib dambe hortiina uma soo istaagi doono anigoo xildoon haddii aan dalka doorasho qof iyo cod ah gaarsiin waayana hortiina dib uma soo istaagi doono anigoo xildoon haddii beesha caalamka iyo Soomaaliya si wax ku ool ah oo Soomaaliya ka faa'iido aan isugu soo dhaweyn weynana dib dambe hortiina uma soo istaagi doono anigoo xildoon haddii aan dhaqaalaha kobcin waayo dhinacfinta dhammaystiri waayo waan miisaaniyadda dawladda gaarsiin waayo ugu yaraan $2 bilyan inta aan xilka hayana dib dambe hortiina uma soo istaagi doono anigoo xildoon haddii aan xildhibaanada xasaanadooda ilaalin waayo oo aan gunnadooda kordhin waayo oo aan caymis caafimaad xildhibaanada siin waayana dib dambe hortiina uma soo istaagi doono anigoo xildoon markii aan arkay duruufaha lagu jiro iyo baahida loo qabo hoggaan waqtigan la falgeli karo waan eegay hoggaannimadeyda iyo baahida dalka taalla ogaalkayga caqabadaha taagan muhiimadda ay leedahay in shaqadii socotay la sii wado ahmiyadda xiriirka togan ee aan la leeyahay saaxiibada beesha caalamka oo aan ku kabo wixii iiga kordhay 2 sano aan ka tirsanaa saaxiibada mucaaradka iyo anigoo u diyaarsan inaan saxo wixii iga khaldamay intii aan xafiiska joogay sida loogu baahan yahay in dhinacyada siyaasadda la isku wado waxaan go'aansaday inaan hortiina soo istaago oo aan idin weydiisto codkiina si aan Soomaaliya ugu gudbino waqtigan adag innagoo wada jirna sugidda amniga iyo yagneelidda garsoor madax bannaan amniga iyo garsoorku Soomaaliya idil way isku raacsan tahay inay yihiin laba ka mid ah halbowlayaasha dawladnimo ee qaran ku tiirsan yahay waxaa iga diyaar ah hiigsi qaran oo aan ku hirgelinayno amni iyo garsoor la isku hallayn karo bulshaduna ku hiran doonto waxaan fahamsanahay ka hoggaamiye ahaan in adeeg caafimaad in la bixiyo mid waxbarasho laga shaqeeyo shaqo abuur la hirgeliyo dawlad wanaag lala dagaalamo musuqmaasuq la helo garsoor madax bannaan intuba ay qayb ka tahay sugidda amni haddii qof Soomaaliyeed uu ka fikiraayo in la sugo amni keliya inuu keenayo ciidan waxaan rabaa in iyo markaan leeyahay caqabada isbarkan waxaan ka dhabayn doonaa dhismaha iyo horumarinta ciidanka madax bannaan siyaasadda waxaan dib u habeyn dhan kasta u samayn doonaa ciidamadeena si xitaan waajibaadka ka saaran dhowrista dastuurka iyo shuruucda qaranka sida amniga muwaadiniinta iyo ilaalinta gudaha dhismaha ciidanka waxaa qayb ka noqon doonta damaanad qaad buuxa oo xuquuqdooda ah taasoo aan gaarsiin doono in askariga shaqaynaya kan howlgabka noqda kan dhaawacmaa iyo kan dalka difaaciisa u dhinta intuba ay helaan xuquuqdooda iyo daryeelka qoysaskooda oo dhammaystiran